agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta biyaha Soomaaliland Maxamed Yuusuf Ismaaciil iyo wafdigu hogaaminayo qayb ka ahaayeen hay'adda NRC iyo deegaanada Harada iyo Nasiya si rasmi ah uga daafuray isla markaana maanta la bilaabay laba dhaambiyood oo dadka deegaankaasi ay ka faa'iideysan doonaan waxaana dhaamamka iska kaashanaya wasaaradda horumarinta biyaha iyo sidoo kale hay'adda NRC taasoo ujeedkeedu iyo taabagelinta ay qaranka u qaabilsan tahay wasaaradda horumarinta biyaha Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa halkaas ugu horeynba ka hadlay siduwaha wasaaradda biyaha ee gobolka Togdheer iyo sidoo kale injineer Fahad Faysal agaasimaha waaxda ceelasha wasaaradda horumarinta biyaha biyo-la'aanta soo martay iyo abaaraha soo maray awgeed waa laba dhaam oo gobolka ah waa kii ugu horeeyay kan maanta ku xigaana iyo dibadda Harada ayaa iyadana laga dhigaya Jilay ka dhigo oo aynu ka dhagax dhigayno dhaam weyn oo qaadaya 6 waxa iyaguna halkaas ka hadlay gudoomiyaasha tuulooyinka maanta laga hirgeliyay dhaamamkan iyagana ka mahadnaq ballaaran u soo jeediyay maamulka wasaaradda biyaha iyo sidoo kale madaxweynaha madaxweyne Muuse Biixi Cabdi sida ay uga rumaynayso ballanqaadida waqtiga ololahaasi u ballanqaaday shacabka deegaankani halka aad iyo aad u soo dhaweynay agaasimaha biyaha hogaaminayo iyo kuwii la socda aad baan u soo dhaweynaynaa waa ku mahadnaqaynaa baahi badan baan u qabnay waxaan kala ballan qaadaynaa mashruucaas hadii la haydmo in aan anaguna ka faa'iideysano oo aan ka horumarno deegaanka oo midhihiisu dib ay uga muuqdaan magaalada insha Allah taala fiican ugu dhaqsaha badan ugu haboon aan u qabanno hawsha hadii ay beedmo gudoomiyaha iyo hawlkaradiisana waxaan doonaynaa gacanta looga baahay hadaan iyaga gacan laga helin hawshu cid kaliya kuma filla waxaan iyagana ka codsanaynaa inay gacan naga siiyaan geesta kale waxa iyagu halkaas ka hadlay mas'uuliyiin ka socotay hay'adda NRC iyagoo la dardaarmay shaqaalaha iyo shirkadaha gacanta ku haya qodida dhaamamkani iyo sidoo kale shacabka deegaanka Harada iyo Nasiya inay ilaashadaan dhaamamkani si uu rumoobo bay dhahan shacabka ay gelisay wasaaradda biyaha iyo sidoo kale hay'adda NRC gabagabadii waxa dardaaran iyo hoga tusaaleyn faray dadka deegaanka agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta biyaha Soomaaliland Maxamed Yuusuf Ismaaciil waxaan hadaladiisii kamid ahaa sida tan ama aynu joognaa tuulada Harada Goboltaxiil oo aynu dhagax dhigayno si wada jira hay'adda NRC iyo wasaaradda horumarinta biyuhu dhaam biyood laakiin wasaaraddu baahiyihii biyaha way ka soo jawaabtay taas oo ku jahaysan ballanqaadkii xusbiga kulmiye uu sameynayay waqtigii uu doorashada ku jiray ee uu sameynayay tuulooyinka iyo degmooyinka marayay ee mid walba markuu arka baahiyihiisa oo ka ballanqaaday madaxweynaha iyo campaignerskii kale xusbiga marayba tani jawaab waxay u tahay ballanqaadkii madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa ay ka soo jawaabtay wasaaradda horumarinta biyaha ee odiga uu yahay wasiir Salebaan Yuusuf Cali Koore marka taas waxaan jecelahay in ay dekada community ahaan ay ku ogaadaan ku nool ereyadan ama degmada Nasiya ee markii la qiimeeyay ayaa waxa loo gartay biyaha dhaamkaas iyo kan laftigooda labadaas dhaam oo la isku daraa in ay ku filan karaan ama baahidii degmada iyaduna ay kafeyn karayaan marka taasi Ahmed Jaamac Aadan Ahmed Digiro TV-ga qaranka Soomaaliland Burco